magacaygu Jimcaale Maxamed Axmed oo jooga tuulada Toon gaar ahaan deegaanka Kadacawl daadada haddaan idin sheegana waa 20 jir waxaan ka shaqeeyaa xoolaha ayaan raacaa gaar ahaan waxaan raacaa geela marka aad soo gasho inankii doobka ahaa iyo inankii dhisnaa reeraha way kala duwan farq weyn baa u dhaxeeya inankan doobkiisa waa artaatiif geelibu hor seexanaya wuxuu yidee qof magaranaysaa meelahaas uu ciyaar gudaya fakaag badan buu leeyahay meelahaas iska ciyaar gudaya ninkan isagu xaas kale gabadhiisu la joogaya faamigiisu ayuu dhex joogaya gabadhiisa wax walba u diyaarinaysaa cuntadii iyo afurka soo diyaarinaysaa farq weyn baa u dhaxeeya magacayga oo ah Cabdiladiif Deeq Cumar oo da'daydu tahay 29 jir oo ku dhashay magaalada Hargeysa oo kaga nool xaafadda Boqoliyo Kotonka noloshayda guurka ka hor waxaan soo qaban jiray meelahaas iskaga ciyaari jiray kubadaha iyo xawaasaas iskaga ciyaari jiray markii koobaad iskuulka ayaan baran jiray markii labaad kubadda iska soo ciyaari jiray markii saddexaad hooyadii baan la noolaa markii afraad farsamada gacanta ayaan haddana ku biiray oo ah aluminium marka hore subax markaan soo tooso waa fool dhaqanayaa salaada subax markaan tukado kadib xoolaha ayaa loo kacayaa marka xoolaha oo marka laga guro waa la lisayaa kadib markay dadkii quraacdaan hawshooda ay ku fuufayaan maqribka la isku sooynayo iyadoo qof walba wixii loo diray uu keenay haddana waa la oodayaa waa laga seexanayaa ardayga loo seexanayaa dab baa loo shidayaa xoolaha iyo waraabaha laga ilaalinaya habeenkii inta baad bilaabmay halkan marka la joogo ayna keenantu markay gaadhaan waqtigii iskuulsanayeen kadib dadku waxay ku xusoo eegtaadeenan oo xilli dhaxmarada ay isticmaalaan kadib markii daan inta anagu isbaranay aan xilli la yeeshay kadib jacayl la yeeshay ayadana waxay noqotay waqtigii ay guursaneed bay gaadhay anna waqtigii bay gaadhay sidaa wada baan isku soo xulanay halkan marka daada la gaadhay la guursaday sidaa la jigad baan dadka iska calmanay saan noloshada wax uga bedelo Facebook ayaan iska baranay waanu kala fogeyn waxaanu kala fogeyn gabileyba iyaduna joogtay aniguna waxaan joogay Hargeysa
marka noloshayda waxa suurta geliyay Facebook-ga markii dambena labadayadu baan isku tagtay jirnay anigu gabilay baan mar ugu tagi jiray iyadana gabi Hargeysa igu iman jirtay intii hore marna kuma fikirin laakiin markii dambe isfahanay qofku waxa weeye labada qof markay saxjabiyaan weeyaan ya labadeeduna waan iska helay jacayl meeshu inday markaa waxa ku fikirna labadeeduna raadismo sheekada wallahi waan wada sheeksanay ilaa muddo 5 bilood adigu bishii lixadeeda noo soo galaysaa ayaan markii dambe waqti ku wada qaadanay inaan guru dhisno inantii wad ka soo farsanaa inanta meelay wad ka soo farsanaa waqti baa qoonayaan inta reerkooda iyaguna waqti baa la qabsanaya oo la ballamaya reerkii inantu geed baa ku bixinaya inantii geed bay wadayaan geedka waxa la keenayaa wixii dhaqanka Soomaalidu ayaa la keenayaa cawsaskii alooladii kabdihii waxa la keenayaa markaa kadib ayay imanayaan qoladii inanka ku socotay inanku wuxuu wataa caaqilkiisii wataa iyo odayaashii inanta reerkooduna waxay sii diyaarsanayaan waalidkii inta bixinayay aabaheed iyo faamiligeed oo dhan ayaa la sii diyaarinaya meesha lagu kulmayna waa geedka markaa kadib ayay imanayaan qoladii inanku waa la sarkaya waa la iska canqaadaya waa la salaamayaa waa la soo farsanayaa dadka meesha isugu yimid badhna hore isku yaqaan badhna markaas ay isbaranayaan halkii horta waxoogaa barashada la geliyaa markaa waa la isbaranaya intii aan isaqoon kuwii isgaranayana dee waa isgaranayaan intii aan isaqoonna way isbaranaysa ma garatay ninkana waa sheekhi waddanka sheekh Axmed Jilaani sheekh Cali Curay baa la yidhaahdaa alxamdulilah rabbil caalamiin ninkana waa garanaysaan waa caruuskii isagoo noo muuqata ninkan Maxamed Cabdullaahi Xuseen baa la yidhaahdaa gacanta waxaan ku guuriyey gabadha la yidhaahdo Hodan Maxamed Axmed oo wilaayadii aniga la igu wareejiyey guursadii zawjtuka waan ka xatuka calaa ma amara Allah tacaala hooda bin Axmed bin Maxamed zawjtuka ka xariya zawjtuka wuxuu dhiibayaa gabaatigii iyo yaradkii ayuu dhiibayaa waana isinaal odhanaya inantii iyaguna xoraya waa idinka guddoominay markaa kadib ay fadhiisanayaan lacagta waxay tan waad sheegaysaa waxaad unastaa intaasi waa gabaati intaas waa yar haddii meesha magaalada lacag baa la bixinayaa waxaa la odhanayaa intaasoo yarada iyo intaasoo gabaati haddii kalena geel baa la isku ballan qaadaya waxaa la odhanayaa geel waa yarad gabaatigina waa sidee markaa kadib lacagtii loo sheegay ee la yidhi intaasan gabaati intaasan waa yarad gabaatiga ayay ka soo celinayaan lacag yarad isagoo wax la kala guddoontay laakiin gabaatiga ayaa laga soo celinayaa lacag tay gartaan ayagu kadib markaa iyaga loo celiyo waxooda waa la salaamayaa waa la kala kacayaa hawshooda gelayaan xoolaha la bixinay inantii marka la bixiyay inankii loo meheriyo dee waa inantii waa inan doonan oo reerkoodii joogto marka haddii baydankeeda leeyahay dee la isla garto ee reerkan dee inanku yahay oo haddii la yidhaaho dee wax isla helo markaasaa inantii haddana lasoo wareejinaya dee ay xilkii saartay oo la meherinaya sharcigu u meherinaya hadday doontana iyadii baa goojoogaho wixii ay qabsato lagu meherinaya geedka dee wuxuu kordhinayaa
laba reer oo day iswajahay oo maaragtaa dee labaduba magac leeyihiin oo isa siiya carruurtii magaca weeya geedku sidaasu qiime u leeyahay xooliina waa lagu bixinayaa intii kale ee u timee faamigii ayaa qaadanaysa lacagtii wax reerkii way u harayaan oo dayrantii baa lagu hagaajinaya hadhowna lacag baa la keenayaa oo reerkii loo geynaya haddii baydankeeda leeyahay dee lagu soo qurxiyo marka waa kaa qiimahaasuu leeyahay magac buu leeyahay markii aanu go'aansanay inaynu najmo isguursanno tallaabadii koowaad aan u qaadnay waxay ahayd aan isla tagno markii aan isla tagnay xaafadahan soo ogeysiinay markii dambe ayay labada waalid isku yimaadeen labadii waalid isku yimaaday ayaa gaaya siiyey badan baa la fadhiyey way ku wada dhasheen carruuraha dhowr iyo 10 carruuraha ku dhashay si wanaagsan oo sidaasuuna shuba gugudee markuu sheexo aadiddo xoolaa caanaa la daadiyo geel wada dhalo ayuu ahaan jiray imikana ilaahay waa la sugayaa lagama quusane xooliyo raxmaadkuwa way yaraan roobku markuu doorto qiimiga faa'iido badan buu leeyahay doogga ayaa soo baxaya xoolo baa intifacsanaya dadkana way sii intifacsanayaan caani bay ka maalayaan cadkii bay ayay ka cunayaan way iibsamayaan waxaase ka faa'iidayaan roobka haddana roobku diina ay marka abaaru dhacaan geedi baa la gelayaa abaaru marka dhacaan geedi baa la gelayaa habqanka dadka badanaya qofkii noloshiisa waxay galaysaa khatar bay galaysaa xoolo baa ka xumaanaya qaar way dhimanayaan qaarna way bakteeyaan وقاعدشون قاعدش مركب كتير كلا قاسا كل بيميل بدو جورسا كل بالكروب كتير جورسا ساد جدوج ساد هدو انت الهرب كشدو وين مرة شبك بقول عليه هدي الهرب حالك كشون كشور ريسا إلى بعد كمان ناس أوكي مالك وان خايا من حتى وخرش والله وهول بدنه والله هول بدن أنا قاس من كيف سننا ها كم كور نوي كم كور هذا كور حاجة بهذه الست حاجة يا تصدق دورت ها تصدق دورت كور تصدق في عن ها كم أسر والله وراح معاه أنت معه مهركي كبعدي حطنا أروسكي بقى أيال لكلي أروسكي قروديكي قروديا بهي أجيبكي قرودي اللي سوديكي سريرتي قرودي ما سريرتي فردكي إن الله مستعان إن ويلكي كورة فلاسدان نجيب سنة
صورتين يا انت عن قاسيو ما يد قيمه ما نقول ساعه بس كدي قيمه ما نقول ساعه كدي شنطه كودا ما ادو شنطه كودا aanay waxay tahay alaabta soo maaha alaabta haday noqoto hurdo iyaga keenay weelka iyaga keenay hooyadina waxay keentay iyagu waxay keenay weelka iyo marinkii hooyana waxay keentay fadhigii fijaanadii aad qasaalada haday noqoto haday TV noqoto haday sabiib noqoto wax walba de adu xaga hooyintaas ka haye kabacdi markii farxadda loo wada qaatay hawshu dhamaatay alxamdulillah maanta midriga baa deganahay manager taashku waxa horta ugu muhiimada ugu weyn waa isaga ciyaarooska dhanay ahmiyada uu leeyahay toobkuna waxay doonaysaa dib badan wallahi loo maro loo xidhaa waa isaga kabacdi hadduu isaga yahay toobkii kolba midba midku ka quruxda badan yahay baad arkaysaa midba midku ka sida aduu foolxun yahay haddana kasii qurux badan yahay ayaad arkaysaa haddaad arkaysana dee kolba qof walba dooqi maanta dooqaygu kolkii hore aanu toob baan doonayay haddana waan iska bedelay wii caajibin waayey haddana dirac baan doortay haddana diracii waan iska bedelay dirac kalaa markii dambana doorto dooqaygu ugu dambeyntii ku dhaco oon soo xidhay de markaa ka saasaan ahayd markaan arooska u diyaargaroobay allah mustacaan markii ugu horeysay suudka ayaan asxaabtayda la soo iibiyeen waan israacnay meeshii baan ka soo wada doorannay waan soo qaadanay diyaarinta aroosadda berigii hore iyo imiga isku mid maaha farq weyn baa u dhaxeeya kolkii hore waxay ahayd dadkii hore aroosyadii hore sida loo dhigi jiray xinayrun baa faraha loo marin jiray qasli yar iyo xubba loo marin jiray markaas waa arooska ku kab jiray iyadii labada qof iskursanaya farxadda asaas ku qaadan jireen imigana farq weyn baa u dhaxeeya iyadana imigana koofeer baa la tegaya waxa internetada lagala soo baxo ayaa la sameynaya hadday waji noqoto hadday xilli noqoto hadday timo noqoto hadday dhar noqoto hadday kaba noqoto wax walba waxaa internetka lagala soo baxa la sameynaya koofeer baa la tegaya markii dambe aan tagay raislaha keligay ayaa raislaha diyaargarowgii raislaha lahaa ayaan kursiga ku fadhiistay isaguna oo iga xiiray raislihii markuu iga xiiray ayuu si aad iyo aad u quruxsan igu xiiray raislihii
aad iyo aad baan isku daawaday ayuu aan iska bogtayday quruxdaydii waxay u jecel yihiin waa la soomayaa ramadaanka waa la soomayaa waxaa la badinaya qur-aanka la badsanaya marka sidaasay u jecel yihiin dadku waxba u dhimi mayso hadda wuu samaysan karaa laakiin dee ruux isagoo ruux islaama maaho soomi maayo oo adkayn maayo salaada iyo soonka iyo haddaa la yidhaha ma adkaynayo markaa sidaasaa loo yaraa mooyaane sidan kale waa caadi aqalka maalinta horeysa la dhisay udbii baa la taagay udbii markii la dhamaystiray saaxiibadii baa sugeen asxaabtayda dhan baa timid ayaa kasoo qayb gashay dhismihii arooska qof walba wuxuu qaban karay ka qabta arooskii aqalkii arooska markay bilaabeen udbii ayay bilaabeen udbii markay dhamaystireen dhan walba ka taageen haddana waxay bilaabeen dushii sare ayay ka bilaabeen xakabkii waxbay saareen intii aqalku ahaayee udub iyo dhig iyo wixii uu lahaa oo dhan baa la isku dhamaystiray maalintii hore haddii rabadaanta ka hor arooska ku dhawaayo dareenka wuxuu noqonayaa dee kole aduu niyad jab ku dhacaya waxaan doonayaa in arooska si degdeg u qabto sidaa aweed baan doonayaa in aan marka intaan rabaan soo galaan farxad badan dareemo
xafladda arooska waxay u dhacday si wanaagsan bartan loo soo dhaweeyay marka hore markii aan soo dhaweynay meeshii barxaddii lagu soo dhaweynay la sameeyey todobtii loo xiray leerkii lagu xiray la qaabeeyey nidaam loo artificial laga dhigay ayaan anaguna naan nimid si wanaagsan baan loo soo baabuur baan lagu soo galbiyey xaafadda la noorsiday markii xaafadda loo xiray arooskii meeshii barxaddii lagu soo dhaweynay ayaan baabuurta ku wareejinay guriga ugu qabtay markii dambana waxay ahayd hordheelkii ayaa qaali igu noqday markuu qaali igu noqday ayaan lacagtiisii aan siidhida guri iskaga dhigo oo lacagtana iska isticmaalday oo nolol maalmeedkaaga ku kafay waxaan u go'aansanay si inay islaamo oo quraata ay ciyaaraan buraanburku waa markii inanta hooyadeed soo galayso joogto ay inantu soo fadhiisato weeyaan heesihii waxa dambe inantu ku ciyaarsan oo marka dambe odagaygu soo galo midaan ka xasuustana waxa weeyaan ahoobey sida loo kacay sahal maahe tan sugaynay najmo soo soco saas ahayd وانا soo dhaweeyay si wanaagsan loo soo dhaweeyay sameecadii baan loo shiday nidaamkii kale aroosku lahaa habkii kale loo farsameeyay aan loo shiday barxaddii arooska lagu soo dhaweeyay saacabku waan loo tumay mashxaradii baan loo tumay qaab kastoo dee aroos meel ka dhaca wixii loo qaban lahaa dhammaan loo qabtay si wanaagsan loo soo dhaweeyay marka dambana waan fadhiisanay salaantii aan dadka ka qaadnay si wanaagsan daan arooska dib u bilaabmay wuu socday salaantii markaan dhamaystirnayna arooskii sidii buu ku socday xafladina sidii ku soo dhamaatay
hadiyaddu aad bay fara badnayd yaa fikaanay lahayd kaadooye lahayd fadhi bay lahayd dee maasha allah aad iyo aad bay wallaahi hadiyad u ballaadhanahayd marin hadday noqoto waa inankii reerkooga oo iyagaa inanta hadiya ahaan uga soo dhigo u keenaa hadday diiqada noqotona inanta hooyadeed ayaa reerka inanka hadiya ahaan uga dhigto u keentaa iyadoon hadiyaddii naloo keenay hadiyaddii aan kala gudoominay ay korontadii naga baktiday waxaanu qabsan lahayn korontada aawadeed oo aanu qabsan lahayn markii korontadu go'day wallaahi oo inii xoogaaban ka xumaanay intii asxaabteedu ciyaari lahayd dadkii noo shaqaynaya ciyaari lahaayeen korontadaa go'day dacwo xoogaa aad ugan uga xumaanay laakiin intii dambe waxba kamaan xumaan calool xumana nagama yahayn waanu iska sii daynay dadkiina sida ku kala dareereen wallaahi habeenkii iigu farxadda badnayd bahayd hortaa iiguna qosolka badnayd iiguna dee dadka badnayd dad badan farxad la qaato dad badan meel wada joogno dad badan wada ciyaarno macal hooyaday gebi habeenkii iigu farxadda badnayd bahayd intaan sheegnay oo kale imika aan sheegi karin ta kale markii aroos ku dhacay uu dhacay xafladdu si fiican bay qabsantay dadkoo dhan oo wada faraxsan aniga si farxad ma dareemay dadkoo dhan la mid ah farxad bay dareemay dadkoo dhan farxad wada qaybsan marka arooska si farxad ku dhamaaday jawigan aan maanta joogo iyadoo rabadaana oo guursaday aad baan ugu faraxsanay maadaama aan guursaday rabadaan ay soo gashay in badan aan ku dadaalay inaan rabadaan taariikh ka horreysay waana ii dhacday wax yar bay iga soo gaadhay rabadaan waanan intii ka soo qayb gashay arooska intii kaleba waan mahadnaqayaa dadkii faraxsan aniga wada faraxsan boorsada jeebkeedaan ku riday tirhanay talabaad marka qofku inaan ku doob yahay waxyaabo badan oo ka maqan markuu guursado noloshiisa oo farxad ku soo kordhinaya ayuu dareemaya wuxuu dareemaya gabadha oo shaqaynaysa alaabta oo sidanaysa markasta way ka farxinaysaa waxaana u keenaysaa wax noloshiisa farxad kaliya mar walba iyo wuxuu ku farxi laabay mar walba oo samaynaysaa si ay noloshiisa happy uga dhigto okay sawa
rabadaanta iyo ayaamaha caadiga wax badan ay ku kala guddisan yihiin ayaamaha caadiga waqti saddex waqtiyo qura cunto la sameeyaa saddexda waqtina iskuma dhawa waa subax iyo duhur iyo habeen saddexda waqti isku mid maaha marka dawaa la yar nasanaya laakiin rabadaanta noqotay rabadaanta badan haddii casuumad noqoto hadday dad badan oo idin aflimaada noqoto hadday dad badan oo idin cashiimaada noqoto rabadaanta wax la soo iibinayaa hadday heed noqoto hadday garow noqoto hadday arabaki noqoto hadday shuuro noqoto intaas baa la soo iibinayaa horta mid dahaban suxuur laga dhigayaa cashada hadday noqotona bariis iyo baastideen baa la kala bedelayaa afurka ay ku kala duwan yihiin afurka sharaabyada baa kala nooc sameyn hadii la doono hadday shamaam noqoto hadday cadlo noqoto hadday saytuun noqoto hadday keeni lalaaqaya caadiga noqoto hadday biyo qabow noqdaan rabadaanta iyo maalmaha kale isku mid maaha الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. bisha rabadaan qiimaha agteeda ka leedahay aad iyo aad buu aniga igu qaali yahay marka koobaad waan cibaadaystaa marka labaad quraanka ayaan akhriyaa marka saddexaad waan sooma intaa kale dhowr dawa aroosina toddobaad ama bilba dhalinyaradii baa imanaysa aqalkii waa lagu caweynayaa waa la iska cayaarayaa muqubadii waa la cunayaa dee halkaas arooskii reerka reer ku noqonaya ku degaya fujaanku waa dhaqan horta ilaa Soomaalidu waana laba nooc midna dumarka midna ragga leh marka ay hawsh fujaanka dhameystiran bay keeneen markii ay keeneen waa ka gudoonay inta aniga family-ga ayaan gudoonay ayaa lagu soo kaxaynaya fijaanadii oo la soo xiray ama joog ha ahaado ama dee fijaan ba ha ahaado fijaana yaryar baa la xidhaado wax lagu saabsaday inna magaalada ku aragtay in kale mooyaan kuwaas oo muqubad yar la dhex dhig hadday ku waawaayaan joog bay soo sameeyeen marka labadeedina inay kimxiska hay aniga ayaa furnay waana ku guuleysan marka ay fijaanka la furayana namba diyaara walba la diyaartay hadii wax qaladaas ku sameeyay fijaanka waxa kugu sameeyay ganaax usha kula dhacsan amba wax kale kugu ganaaxis marka adigu waan ku guuleysanay si fiican baan aanu furnay waana laba mashxarad waan ku guuleysano wala lagu mahadnaqay sidaan furnay arooska iyo fijaanku laba maalmood oo kala dambeeya ayay dhacaan arooska marka fijaanka lagu keeno habeenka ma furin kartid habeenka ka dambeeya iyo habeenka saddexaad iyo habeenka afraad
kolba kaad ka dhigatid ayaad furan kartaa oo caado loo leeyahay. anoo hofjaankii sabiibta kolkii horeysay hablaha soo qaaday 2 hablood midna bad habeeyay taageernimadii anoo ka dambeeyay way sideen oo galay oo degaan oo furaan daadu wixii ku jira la wada cun la wada arag markii dambe way ciyaareen aduu intii ciyaar kareen markii dambe way iska kala dareereen saas ku dhamaatay dhaqano waxaan la socdaa marka la furo fujaaga inay daarasho tayada la dhadhasiyo marka horeysa oo qof asxaabteeda kamid dhadhasiyo